jacaylo boodariinu diideen baan u haystay waa jacaylo boodaan ladhayno ciidi baanan karino reerka iyo wadnaha iyo boogaka gataaliyo inuu yahay dircashaaqu been baan u haystay abwaanka iyo muxuu ahay beerlula meesha lagu tilmaamay waa halka hadda aan taaganahay lalqatada abwaanku wuxuu joogay laba habeen saddexaadka waa la ballansanaay in lees arka ma aysan suuro gelin safar degdega baa kooxdu ku baxda markaas wadigu butaaco beeraha waraabsho dukubaas ku jiifo isaubaas buuxsho badarkiiyo galaydi laga tuure baarko canabkii bislaado buladiyo ciyaara lagu waabariiso beelugu bujooga abwaanku markuu baxa wuxuu yidhi heestan soo diri doono idaacadaha ka dhagaysta wayna timid ayadoo kumbulada heestan beled weyn oo dhammaystiran xamaraa lagu soo alifay waana haddii heed sacaanka ah oo beled weyni dhanka bari magaalada soo boqoraa joogto iyada hadafgoodo bidixdii haweenkiyo sidii loo dhameeyo ima boqontaa joogo baalgoray laamoodo baarkana xasaanke bidix midigiis gaaro qisada beerlula ama sheekada run ahaantii dhowr mar waan dhegaystay qisadaasi aad baan u jeclahay hadii jeer inaan kula laabto oo dhagaysto waxyaabo badan ayaan ka heystaa ama sawiradeeda aan isdhihi karaa beerlula waxay ahayd qof aad u qurux badan sida aniga ahaan iqra ahaan aan aaminsanahay waayo abwaankii weynaa ee Hadraawi ayaa ka sameeyay hees aad u macaan soo bariidadaydii iyo bidaashadeedii buundada ciyaartay beled weyn ku taali lulata guudkood bartankeeda maay sheekada beerlula waxaan ku maqlay in buuntada halkaan ay leeqata yar ahayd oo diismaysa Hadraawi iyo kooxdiisa waxay ka yimideen gobolada gobol kamida in bay ahayn jeclahay subax aroore ahayd halka buundada waa la isdhaafi jiray kooxa loo gudbi jiray subax cadcad oo soo baxaysay ahayd halka ugu riibidi meesha kaabinka oo la iska hor imaana gabadhan saana u soo gudbaysay Beer